going on xaaladda amni ee dalka laftii uu ka hadlayo dhalinyaradu waxaan u sheegay dhalinyarada kale adigu waxba u sheegtaa waxaan u sheegay bahashu inay ku fiican tahay in danaystayaal noqdo marka mudaharaad iyo qeyle iyo buuq jirto inay ka dhacaan bahasha oo seexdaan oo leeja abarbarta hoos laakiin philosophy-gaasi ma shaqaynayso marka ugaaskaaga la weeraro diniyo dhibaatada jirta taas laakiin at least inaan isku dayno sidee ugu qancinaysaa nin dhalinyaro ah ugaaskiisa iyo siyaasigiisa la weeraray 18 saacadood ka badan inuu guriga fadhiisto hadda waxaan u sheegay qof ii sheegi kara inuu daarood iyo hawiye wax jira yihiin qof ii sheegi kara iga dhaadhicin okay arinta muqdisho ka taagana u imaanayna arinta muqdisho ka taagana rabaa inaan baasha ku istaajino sidee ugu qancinaysaa su'aasheedu waxa waaye waxay ku dhacday moogtaa in la dhaco oo xilligan laga dhaco Soomaha waa okay is a good idea sidee ugu dhaadhicinaysaa nin siyaasigiisii iyo ugaaskiisii qabiilka Soomaalida meeshay ka taagan yihiin jubbaado see ugu qancinaysaa in ay okay tahay inuu iska seexdo oo uusan waxba samaynin iyadoo la ihaanaysanayo ugaaskii dhammaaya reerka oo dawlad la isticmaala la weerarayo 8 saacadood see ugu qancinaa ninkaas inuu guriga fadhiisto it's easy haye ugaasku nolosheeda anaga wuxuu ku darsaday iska in ugaas baa la yiri ugaas baa tahay oo aabbaha xilkaaga dhaxlay oo reer dhan baad afayeen u tahay nolosheedana wax ku soo kordhinay anigu ugaasku nolosheeda wax ku soo kordhinay laakiin waa ognahay dhaqanka meesha Soomaalidu ku taagay isagoo ugaas wax ku darsan waxay ka mid tahay koodharka oo social la isku fahmay 4 milyan ka badan lagu bixiyay calaamad masaarkiisii see uga dhaadhicina ninkaas waxaas oo dhan waa la socdaa laakiin qofku markuu wax bartay oo xoogaa aqoon kororsaday danaysta uu noqonayaa selfish uu noqon karaa bahasha tusaale ahaan aniga waaskayga oo yacni qof ila mid ah intii dad laga soo dhex qabtay aabbaha baa dhaxalka kaaga tegay bahasha socod halkaas loo waday walaalkayo aniga inaan adiga kuu dhinto wax macnaama ii keenayso laakiin dhalinyaradu qaar baa siyaasadda Soomaalida weli may gaarin heer ay ka madax banaanaato dhaqankii waa sababta dadka ula hadlano okay ma isku raacsanahay siyaasadda Soomaalida weli dhaqankii iyo siyaasadda waa isku qasan yihiin meelo badan okay haddii ay philosophy-ga ah inaan dhaqanka loo baahnayn ay shaqaynayso xalay ninka la dhahayo nabadoon xaadoole iyo raggu ku jira madaxtooyada laga soo diray raggiyo kulanka ku jira aa la weeraray arrintaa maxaa kale in dhaqanku waa meesha ugu dambaysa waayo Soomaaliya iska taabato niyo midaan kuu sheegay xalayo jubbo maxaafid ma dhimala maxaafidnimada soo cadeysana dhimala balaayada yaa bilaabay balaayada Xasan Sheekh bilaabay wuxuu ku bilaabay dadkii oo shir ku jiro guryahooda nabad ku jiro ciidamo soo diray markaasuu dhaay ciidamada halala dagaalo ciidamada ilaalinaya Xasan Cali Khayre iyo ustaadna runta ka sheegtay halkaas balaayada yaa bilaabay balaayada Xasan Sheekh bilaabay runtana waa haynaa iyo dheytada haddii aadan dawladda afayeen u hayn ana si kalaan u arkaa in balaayada cid kala bilowday masaajidii yaa dumiyo barakiciyay dadka shacabka Muqdisho masaajidada dawladda iska lahayd midaan ku sheego shacabka Muqdisho yaa barakiciyay dawladda iska lahayd dhulka hadda ku sheegay yaa nool oostooyinka qoray oo dhahay ha laga kaco dawladda ustaas dhageysano haye ninka intuu jasiiro ka soo guuray howlwadaag soo degay oo qoryaha watay balaayada ma isaa bilaabay ana bilaabay sidee ku tahay balaayo ma xaafad kamida Muqdisho inuu dego Xasan Cali Khayre inuu xaq uma laha sidee taas balaayo ku tahay inuu jasiiro ka imaaday guriga xildhibaan sidee ku tahay haddaba xaq buu u leeyahay waxaad leedahay marka haddii maadaama aad siyaasad ahaan Xasan Sheekh uga soo horjeedo uma lihid xaq inaad Muqdisho ku dhaqdhaqaaqdo Muqdisho awal hore meeshu daro waa tagi jiray laakiin inaad qori qaadato xaq uma lihid qoriga uu qaatay maxay tahay ilaaladiisi waay dadka ilaalinayay ma nimanka afka duubnaayo hooyayaasha wataan leedahay waa ilaaladiisi ilaa hadda nimankaas caddayn looma hayo inay taageerayeen Xasan Cali Khayre maxaa yaa dagaalamaya marka yaa dagaalamaya hadda waa la soo weeraray ninka see loo soo weeraray adaaba qoryaha watay meesha soo galay dhufaysta xirtay horta defiri had okay jubba ma waxaynu ka dhignaa sheekadii maxaa la dhihi jiray just in cadays mise waxaynu base garaynaa factskaaga iyo factskayga dadkiina okay sug Xasan Cali Khayre inuu jasiiro ka imaado asagoo ciidan wata oo u imaado Barmuudo xaq uma lahan muwaadin ahaan si kasto siyaasad ahaan Xasan uga xaq uma lihid okay marka wadanka boqortooyada ka jirta iyo dictatoriyad kama jirtay dawladda ka jirta
هي سي اوكي سو سيحه ولا هينان أنا باشا أنا نيض وما بان وإنتات ميل نبضة كتمي إنتات هالوداك تما دو أون نبضة إنت قري وضعت ميل كستحرته حق ملهي ilaaladiisi waaye siduusan xaq u Never. lahayn inuu ilaala haysto never حق ملهي إن قري قاعدته عاصمة الحياة أنا هذا كقوله وحق دستوري soo xaq uma laha nin siyaasiya oo nafsadiisa u baqaya inuu ilaala haysto masaasa dawsa dhegeyso way haysteen in la ogol yahay jirta laakiin hobiyaal baan soo qaadanayaa okay dawladda hadda laftarkeedu mandate kuma joogto soo yaa ogol like there is no mandate for su'aal baan ku weydiiyey hotel weheliya madaxtooyada intuu jiraa yeah hotel weheliya madaxtooyada soo 1 kilometer ma jiro yaa kaba yarba su'aal baabka hore madaxtooyada maaha waa u dhow yahay ilaa agas waa u dhow yahay mirinaaya inta u jirta madaxtooyada xogaa shir fadhiyo xogaa dabaqa cali mahdi ninka laakiin sheekh shariif meesha uu degan yahay madaxtooye kama weerarayo jubba aan ku waa deganaan karaa madaxtooyada albaabkeeda deganaan karaa aan dhamaysto hadda okay ma waxaad leedahay maadaama meesha soo degteen daad micnaheedu waxaa waaye waa inaa idinka idin dilo aan ku dhameeyay cadaynayn arrintii ahayd dawladdu inay waxay isku dhamaadeen oo hadda waxa meesha haray hogaamiye kooxeed ay tahay isda aan dhamaysto markaan ku dhameeyo ka bacd hada ay mirinaaye intaa soo gashay dabaqa cali mahdi dabaqa magaalada ugu dheer intaa fuushay madaxtooyada sniper saa ugu soo haysaa waxa rabtaa inaa faatax akhriyo ku masaajiyo rabtaa okay taas maxaa cadeen haysaa inuu sheekh shariif arrinta intuu koray dabaqa cali mahdi uu mirinaaye ku hayay ciidamada saaran meesha uma jeedin ma cadayn ma u haysaa inay iyagu rabeen inay weeraraan madaxtooyada maxay tahay dantaad u fuushay dabaqa cali mahdi soo ma fuuli karayo dabaq aniga انت قولي ما فولي كريسو سو فولي دبق ما فولي كرتي ilaalada dalka dawladda kama jirto inoo dawlad kama jirto dalka bes marka intaasan inay dawlad ku tirtaan ku tusayaya maxaa wixii dhacay maxay ahaayeen okay so taasi marka point kaagu wuxuu yahay ha igala dawladdu inay weerarto okay asla faana marka dawladdu inay weerarto sheekh shariif waxay cadaynaysaa point ka inay dawlad ka jirto wadanka mise waxay cadaynaysaa inay dawlad ka jirto wadanka adiga haddaad aaminsantahay waddanka dawladda ku jira maxay igala doodaysaa ustaad waxaan kaala isla fahanna marka doodaydan ku fahansiinayaa waddanka inaysan dawlad ka jirin cadayn waxa u ah in sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayra la weeraray si sharci darra adna waxaad dhahaysaa si fiican u dhegaysta si aan kuugu caddeeyo inay dawladi jirto oo aan u isticmaalo ku takrifal awoodeed oo systemkii iyo wixii soomaalinimada loo dhisay iyo hubkii soomaalida loogu deeqay anaa isticmaalaya si aan adiga kugu tusiyo inay dawlad jirto mandate-ka dawladdeedu wuu dhammaaday that's why aan ku dhahaya dawlad ma jirto 15 May ugu dambeysay xasan sheekh maxamuud ma dhamaysatay ustaad okay ku soco 2021 likes ka socdaan waxa dhacday nin la yiraahdo indha cadda intuu dajika dahasin soo istaagay wuxuu dhahay dalka dawladda kama jirto hadalkana hadda leedahay dabada axbad laga geliyo indha cadde meel allaale meel hadda maray lama hayo generaalka ha farmaajo taas waa ku saxsanaa farmaajo ku saxsanaa ha okay point okay aha okay farmaajo ku saxsanaayo dastuurka dalka waxaad leedahay farmaajo wuxuu ku saxsanaa inuu xabadeeyo generaal indha cadde muqdisho dhexdeeda okay uu ku saxsanaa laakiin xilligaas madaxweyne xasan arrin kale oo ka dhahay arrintaas dastuurka dalka isaga u taala dastuurka dalka waxaa ku qoran inaan firaaq dastuuriya dhici karin okay xafiis kasta oo dawladeed inuu xafiis kala bedelo ama qof bedelo maahee qofka markaa jooga kama tegi karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa madaxweyne bedela uu helo maahee qodobka noo sheeg أنا دستور كذلك كجرا. شيك قضب كشيك. دستور كذلك. هذا ما قضب كشيك. دستور كذا ما أفكار شيء. دستور كواحد كجرا كل شيء. دستور كذا ساوي بهاي. دستور كيك هالينا. كي لبض كلابية تبانك. لبض يا كم بقى. كي لبض كلابية تبانك. ها. أوكي وحكو قرن إن فراق دستوري وسنجع كرين. ها. دين دورة شقبو. دورة شقبو أنك يشينو. يا. أنك يشينو. ناقة شرع دعي. ما أمسنت الدرجة في عدد الغبا كرو. ها. سيلو غبا كرا نوشرح. سيلو. لايك كاس. أفايك دولة ده الهلدو يا guys.
waxa laga doodayo ee nimankan ay diidan yihiin waa sida loo qabanayo sidee qof doorasho qof iyo cod loo qaban karaa ii sheeg adi indha cadays ma la raba mogta doorasho qof iyo cod asay ku dhacay wadankan waa ognahay xaaladiisa maxaa ka jira dhibaato 80% wadan kamid ah argagixis haysata 80% ma aha how many percentage dalku waa degmooyin ma taqaanaa degmada ugu dhow xamar ay haystaan argagixisadu ma taqaanaa degmooyinka dalka ay nimankan haystaan 3-4 waay inta kale waa degmooyin haddii aadan been sheegaynin 3 iyo 4 degmo ka badan ay haystaan argagixisadu wadanka degmooyinka saxda ah ee gobolada ka tirsan ma ku sheegaya I mean si ay u dhacdo doorasho qof iyo cod wadan uga dhacdo ummadda wadankaas oo dhan waa inay codeeyaan xagee ku qoranta waa inay codeeyaan waa sida adduunyada democracy-ga marka laga hadlayo one man one vote it has to happen that way wixii intaa ka soo haray waa doorasho dadban waa doorasho kale okay Ethiopia doorasho waxa kugu filan Ethiopia doorasho ka dhacday Soomaaliya joognaa jubba Soomaaliya u soo laabo adaa yiri adduunyada yes Ethiopia Soomaaliya u soo laabo no Soomaaliya u soo laaban maayo ay okay aha doorasho ka dhacday Ethiopia okay ma mawduuca inaad iga saartaan diidaya ma ku soo laabanaya bartid ninkan muxaafid waay way wacada inuu muxaafid yahay laakiin waa ani muxaafidina ahay muxaafidina Soomaaliya aan ka hadlayaa Ethiopia doorasho laakiin Xasan Sheekh waa taageersan tahay war Ethiopia doorasho ka dhacay baxashu madaxweynaha dalkeen doorasho Ethiopia doorasho ka dhacday haye Ethiopia Tigray lagama codayn Amhara lagama codayn ku dhawaad waxay noqonaysaa 15 milyan meel bulsho ay ku nooshahay lagama codayn sababtuna maxay tahay haye waa xaalad amni darteed okay dalkeena inta nabadgelyada ah baa badan iyo inta aan nabadgelyada ahayn inta nabadgelyada ah badan been weyn aad ku sheegaysaa dalka waxaa badan inta aan amniga ahayn waa isla ognahay taas Soomaaliya isticmaalaya taada isticmaal dalka amniga maanta dhibaato meel yar argagixisada wax ku turtuuraan baa ka jirta inta kale dalku waa amni koonfur galbeed majority degmooyinka dalka waa amni Jubbaland waa meesha ugu badan ee haystaan argagixisadu marka laga tago gobolka Gado gobolka Jubbada Hoose oo iyaguna in yar Axmedooba ka tirsan Kismaayo kale Baaya Bakool meeqa degma ay dawladdu gacanta ku haysaa ma taqaan majority dawladda gacanta ku haysa intee degmay ku haysaa argagixisadu gacanta degmo sax ama ba jirtaba laakiin waxaa jirta tuulooyin gacanta ku haya soo Baaya Bakool oo dhan dawladda gacanta ku haysa Baaya Bakool iyo Shabeellada Hooseba laakiin dawlad doorashada qof iyo codka ma taqaanaa meelaha laga codeeyay doorashada qof iyo codka ah Xasan Sheekh uu isagu isku dooranayo dalku waa parliamentarian horta haliyo okay dadku intay doortaan madaxweynaha dooran maayaan iyo gudoomiyaha baarlamaanka maya doorashada koonfuriga galbeed aan soo laabano bilis waxaad isku dayaysaa marka diversion inaad igu samayso topiga koonfur galbeed waxa ka dhacay doorasho qof iyo cod maahan oo adiga sheegaysid adiga sida 13 degme ka dhacday doorashooyinka hadda qaabkee loo codeeyay degme macnaheedu waxay tahay waa dhul la eg Belgiumka iyo adigu dhul Holland la eg baa maanta doorasho ka dhacday dul Holland leegay doorasho ka dhacday goormee la soo dhisay xisbiyada doorashooyinka ka qayb galayay abad labadii kun iyo waxa la bilaabay 2023 la bilaabay laakiin ilaa hadda cadaynta aan ka hayno doorashada ka dhacday koonfur galbeed waxa